waxaatiin indhihii shacabka Soomaaliyeed su'aal aan isweydiinayna marka shacabku markay ishaan ma idinku soo ordaan ma soo idinka ordaan taas qiyaastiina haddii shacabka Soomaaliyeed idinku soo ordaan waxaatiin astaantii iyo indhihii ummadda Soomaaliyeed hadday idinka ordaan waxaan u baahannahay aniga idinkuba inaan shaqadeena sii wadno qiyaasta shaqada aan hayno inay wanaagsan tahay in kale shacabka Soomaaliyeed la weydiinayo haddii jawaabta shacabka Soomaaliyeed ay tahay mid ka duwan tan anagu aan aaminsanahay iyaga naga saxan anaga khaldan taas waa mid waxaan idinku ammaanayaa aan aad ugu bogay hadda warbixintii aad bixisaan wax aanan dadka kale ku arkin oo ah agabka aad haysataan oo dhan inuu idin xisaabsan yahay أنا الدنيا مركان لا حريرو يا بقى أول بدنا رنتي نلقط لا آمن فوق آمن درجة أما أنا ذو مهم وأوجع عند بدنا يمكن نكمل على كل جين تلقى صوت مكان صوت خطر بدنا صوت كشان صوت دشان وكو أمانتي لكن وأنا بلنت إنه هاتو dhalinyaradii 20kii xogaa kuna hada imtixaanadooda awaaldiiseen sida sharafta lana aduga amnigooda u sugteen maxaad u haysaa intan ka badan waana su'aashaas balanteena waa inay su'aashaas maxaa loo hayaa dhalinyaradaas mustaqbalka waddankeega maxaa u tari karnaa maxaarabtiina uga xirtaan labo jiilkii idinkaga horreeyey oo madaxdii booliska Soomaaliyeed ahaan jirtay waxay soo sameeyeen waa la arkay weyna yaalo idinku maxaa rabtiin jiilkeeda ka dambeeyana uga xigtaan muxuu shacabka Soomaaliyeed idinka aaminsan yahay idinku soo ordaan ma soo idinka ordaan haddii su-aashu ay tahay shacabku inuu idinka ordo ama kulligeen haddaan xuquuq dowlad ahaan nahay naga ordo aamin la-aanta awgeed waxaan codsanayaa inaan dib isugu noqono annaga xukuumad ahaan iyo idinka ku qorisaan sababtoo waxaan la xallin karin ama la saxin karin malaha haddii la yiraahdo sida uu taliyo codsaday ama kulligana codsateen waa idinla shaqayn doonaa haddii la yiraahdo xuquuqdiina waa idinkala shaqaynaynaa waajibaadkiinana waa idinkula xisaabtami doonaa waana maanta